Asalaamu calaykum mudanayaal iyo murwooyin. Soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada Machadka Darwiish Academy. Qaybtan waa qaybtii sare. Waxaan ku jirnaa taxanihii casharadii isku xigay ee qaybta sare. Qaybtan waa qayb muhiim ah oo ka mid ah taxanaheennii. Waa sida qofku uu waqtiyada kala duwan wax ugu falanqayn karo. Tusaale, hal bil oo u soo gaabiyey 1 month, hal toddobaad oo u soo gaabiyey 1 week, hal maalin oo u soo gaabiyey 1 day, 4 saac oo u soo gaabiyey 4 hour, hal saac oo u soo gaabiyey 1 hour, 15 daqiiqo u soo gaabiyey 15 minutes. MT aan soo qaatay minute buu taaganta. Inta tan waxa weeye adoo ka soo bilaabaya falanqayntaada hal bil, adoo ku xijinaya hal asbuuc, hal maalin, afar saac, hal saac ilaa 15 daqiiqo ka helisid entry saxa suuqa ka gelisid. Sideeba iskugu xiri kartaa intaasoo dhan? Analyse-kaagina u noqon karaa analyse qurux badan. Mudanayaal iyo murwooyin, marka aad falanqaynaysid suuqa ama taxliilinaysid, waxaa lagama maarmaan ah in aad meel fog time frame fog wax ka soo bilowdid falanqayntaada, kadibna aad time frame-ka ugu hooseeya timaadid, iskuna xirtid time frame-yadaas falanqayntaaduna isku xiran tahay si qurux badanna aad iskugu xirtid, waana lagama maarmaan. Sida qaybtii dhexe ku soo barateen trend lines-ka iyo sida la iskugu xirayo, haddii wax idinka dhimanaayeen qaybta tan baa si qoto dheer uga hadlayaa ee si fiican u dhuux. Okay, sirta baan idhaahnay taxliilinta suuqa waa adoo mar walba falanqayntaada ka soo bilaaba hal bil, hal asbuuc iyo hal toddobaad. Maxay muhiim ku tahay inuu qofku falanqayntiisa uu ka soo bilaabo meel fog? Mar walba oo falanqaynta meel fog ka bilowdid, waxaad arkaysaa waxaadan arkayn marka aad time frame dhow joogtid. Sababta ay suuqa ka dadku ugu khasaaraan waxa weeye time frame-yada fog dhow bay wax ka qiimeeyaan. May suuq cilada ku haysata haddii ay tahay intaad trade gashay inuu kula kala wareego isla markii, maxaa keenaya? Waxaa keenaya inaad meel dhow wax ka aragtay. waa inaad meel fog wax ka arki kartid. Aqoontaadana baa taasna keenaysa inaad meel dhow wax ka cabirtid. Markaa meel fog wax ka cabiraysa waa inaad time frame fog imaanaysid. Kadibna time frame-yada kala duwan wax ku soo falanqaysa ay isku xiri kartid. Cilmiga aad soo baratay calaamadii wixii oo dhan iyo trend lines-kii meelihii la dhiganayay, market structure-kii wixii oo dhan, kadibna time frame-kii isku xiraysid. Wixii intaa kasii dambeeyana waxaa aad usii dhexgelaysaa istaraatiijiyadeydii iyo waxa weeye Darwiish strategy oo macadku lahaa oo si qoto dheer u fahmaysid. Mudana iyo murwo aan idin tuso markaa ficilkii. Okay, aan u gudagalno ficilkii suuqa. Saa halka u jeedid waxaan joognaa hal bil. Markaad hal toddobaad joogto waxaa arkaysaa in suuqii marba mar ka dambeeya hal maalin aad timaadid oo suuqii sii dheeraanayo. Okay, waa ujeedaa sooma? Okay, balse hal bil baan tegaynaa. Hal bil waxaa arkaysaa suuqii oo dhanba inaan saan ku soo koobay saaxiibayaal. Okay, marka vertical line-kaaga soo qaadatid oo halkaa saartid, waxaa arkaysaa in halkan tahay 1986 inuu halkaas suuq ahaa. Haddana in la joogo bishii xilligan 2000 iyo waxa weeye xilliga kan la joogo 2019. Marka mudanayaal iyo murwooyin, waxaa lagama maarmaan ah in aad falanqayntaada mar walba ay muhiim tahay inaad ka bilowdid time frame fog. Aan jarna marka structure-ka suuqa aan halkaa dhigno. Waxaa arkaysaa marka structure-ka suuqa jartid waxaadan hore u arkayn oo cajiib aad arkaysaa. Okay, aan soo qaadno trend line-keena. Halkaa saar trend line-kaaga si qurux badan baa u sawiratay. Ujeedaa sooma? Si qurux badan oo cajiiba baa trend line-kaaga u sawiratay. Mudana iyo murwo oo adoo qabadsiinaya mid walba. Waxaa ujeedaa trend line qurux badan oo halka kaaga soo baxay. Sidaas si lamida markaad fiirisid waxaad ku falanqaynaysaa markaa structure-kii iyo charts-kii dhabta ahaa. Okay, si aysan ka dhaliskan aad uga baqin. Okay, suuqa marka mar walba maxaa ka bilaabaysaa cirifkaaga adoo ku xiraya cirifka kale
ee suuqa. Okay, meeshan adoo mar walba cirifka saaraya mudane iyo marwo. halkan kadibna adoo kan kale ku xiraya. waa muhiim mar walba inaad cirifka saartid. waxaad arkaysaa halkaas inuu trainline qurux badan uu halkaas kuu sawiran yahay si cajiiba. markaa saa dhahdidna aad si cajiiba u arkaysid. waa lagama maarmaan marka uu qofku sawiranayo suuqaday si qurux badan waxa u arkaysaa falanqayntaadii ya si cajiiba adaa maamulaya ujeeda sooma si qurux badan markaasaa ka maamulaysaa si qurux badan ujeeda sooma adaa maamulaya saana dhahaysaa soo dhawaysanaysaa waa yaraynaysaa waa weynaynaysaa waa jeekimaysaa saana dhahaysaa cirifka ma kuu saaraya marka wax walba halkaasaa ka hubsanaysaa. marka waxa lagama maarmaana inaa mar walba adigu maamulaysid gacankaaga iyo waxa weye sidaad u sawiranaysid. saaxiibayaal marka maadaama inta tan aad sawiratay maxaa weye waxa xiga oo aad sawiraysid marka hadda waxa xiga oo aad sawiraysid waxa weeye in aad suuqii falanqaysid oo dhexgeshid falanqayntiisa hadda marka. see u dhexgelaysaa falanqayntiisi marka saaxiib? waxaa u dhexgelaysaa inaad misna trainlinekaagii soo qaadatid aad fiirisid horta suuqu muxuu horay u sameeyey aad fiirisid. halka ka bilow falanqayntaadii isku xir marka ushatan kadib halkaas ilaa halkaa fiiri. kana soo qaad adoo halaka ka duulaya isna isku xir falanqayntaada adoo kan kale ku xiraya. waxaa ujeedaa inay isku xiran yihiin falanqaymahaagii suuqa oo idil inay isku xiran yihiin oo si qurux badan oo cajiiba ay iskugu xiran yihiin. waxaana isku xiray keenayna inay isku xirmaan waa qaab dhismeedka suuqa oo si cajiiba aad waxa weeye u falanqaysay. halka markaad fiirisay suuqu inta maru soo taabtay signal ba halkaa ka baxay halkaa kale signal kalaa ka baxay halkan waxa ka baxay signal kale ujeedaa bartan waxa ka baxay signal kale mudane iyo marwo halka waxa ka baxay signal kale halkana waxa ka baxay signal kale markaad fiirisay. kadibna kii guud ba u guda gelaynaa signalskii selka ahaa halkaa signal kale oo sela ka baxay kalarkaa bedelaynaa gudood ka dhig kan kale soo qaad halka mid kalaa ka baxay oo ujeedaa mudanayaal iyo marwooyin halka mid kalaa ka baxay halkana waxa ka baxay signal kale bartaa markaa fiirisidna mid kalaa ka baxay isku dhow double top u sameeyay suuqi ku laab halkan mid kalaa ka baxay halkanna signal kalaa ka baxay. markaa fiirisi markaa falanqayntaadii aad sidaa u sawiratay quruxda badan oo cajiibka ah oo aad isku xirtay maxaa marka lagaa doonayaa hadda? wax lagaa doonayo waxa weeye inaad isku xiri kartid awooddaada dhan aad halkan saari kartid marka hadda. maxaa keenay suuqu halkan inuu ka laabto bartata ka soo dhaco saaxiibayaal? intata markaa focuska saartid waxaad helaysaa siro badan. halkaa markaad saartid waxaad arkaysaa suuqu halkan inuu ka sameeyo wax la dhaho double top uu ka sameeyo suuqu bartatan. halkan hoosena uu ka sameeyo wax kale oo cajiiba oo la dhaho double bottom uu ka sameeyo suuqii. markaa si kale u fiirisid inuu ka sameeyo xarafkii m uu ka sameeyo suuqu halkan. markaa soo jirta structureka suuqa halkaa kasoo jirta ilaa halkaa keentid waxaa arkaysaa inuu sameeyo suuqu xarafkii m inuu sameeyaba ujeedaa mudane iyo marwo. kadib markuu xarafku saan sameeyo muxuu suuqii uu kala wareegaya kala weecanaya markaad aragtid uu double bottom hoos ka dhaco isla eg aan kala dheerayn sida tan oo kale waxaad arkaysaa confirmation ama xog buuxda oo waxaad helaysaa suuqii uu ku kala weecanayo wajahada ku bedelanayo. taasna waa muhiim mar walba inaad maskaxda ku haysid. okay, maxaa samaysmay marka saaxiibayaal? waxaan idinaa suuqu mar walba wuxuu sameeyaa wuxuu hore u sameeyey. maxaan ka wadaa suuqu wuxuu sameeyey wuxuu hore u sameeyey? halkan buu hadda ka sameeyey emta Soomaa balse hadda halka kama sameeyne horey buu halkan uga soo sameeyey haddaad fiirisid mudane iyo marwo. halkan haddaad fiirisid m cajiiba oo qurux badan buu suuq ka sameeyey. haddaad fiirisid halkan m cajiiba oo qurux badan buu suuq ka sameeyey kadibna wuu soo dhacay. dhicitaanka uu soo dhacay markaad fiirisid waxaa halka sii dheer in suuqu uu si qurux badan uu halka usoo jabsaday
mudane iyo murwo markaad fiirisid oo aad sawiratid trainlinekaaga si qurux badan aad u qabadsiisid waxaa arkaysaa in si cajiib ah uu usoo jabsaday halkaas trainlinekaagii jabsigaa uu soo jabsadayna aad arkaysid wax cajiiba oo qurux badan kadibna suuqu halka inuu halaka suuqu ka kala wareego maxaa keenay waxbaa keenay waxa ku kalifay oo keenayna waa suuqa oo sameeyey double bottom halaka ka sameeyey saaxiibayaal kadibna uu saa ku kala wareegay exactly marka suuqa halaka markaad fiirisid wax kaloo ka sameeyey oo ah double top buu ka sameeyey markaad fiirisid mudane iyo murwo halakan kadibna uu soo dhacay halakan uu m ka sameeyey ujeedaa sooma kadibna maxaa dhacay uu soo dhacay sidii oo kale marka halaka muxuu ka sameeyey m kaluu ka sameeyey kadibna suuqii uu dhaqaaqay exactly madaa halaka m ka sameeyey isna halakan oo kalena muxuu ka sameeyey m kaluu ka sameeyey kadibna wuu dhaqaaqay suuqu exactly tabtii oo kale uu samaynayaa mudane iyo murwo wuxuuna u samaynayaa siduu hore u sameeyey halakan oo kale markuu saan ka sameeyey kadibna wuu dhaqaaqay oo ujeedaan suuqii wuu socday halakan uu ka sameeyey kadibna wuu soo dhaadhacay haddana isla tabtii oo kale uu suuqu samaynayaa balse si ka duwan iyo meel ka duwan buu ka samaynayaa waana muhiim intaas oo dhan oo aad heshay confirmation ah waxa ku siinaya waxa weeye waa market structure-ka marka fiirisa marka suuqa halakan hadda wax cajiib uu ka sameeyey saaxiibayaal halka markaad fiiriso wuxuu ka sameeyey iyo suuqu halakan wuxuu ka sameeyey waa isku midkii kadib halka markuu ka sameeyey inta uu dhaqaaqay suuqa kani isla midkii intii oo kale buu dhaqaaqay oo waad arkaysaa waa market structure iyo qaab dabiiciga suuqu iyo sida uu suuqu dabeecadaha uu sameeyo waa lagama maarmaan marka fiiris marka structure-ka suuqa oo aad fahantid waxaad fahantay wax badan oo ku saabsan qaab dhismeedka suuqa markaad fiirisid oo soo jirtid inta tan keliya haddii aad soo jirtid waxaa arkaysaa wax cajiiba oo aadan horay u arkayn baad arkaysaa marka aad fiirisid oo si qoto dheer u fiirisid halka wuxuu suuqa samaynayo wax cajiiba wey markaad fiirisid waxa uu suuqa hadda halka samaynayo marka mar walba waa muhiim inaad fahantid qaab dabiiciga uu suuqu samaynayo iyo sida uu samaynayo iyo meesha uu ka samaynayo iyo sababta uu samaynayo haddii hadda ilaa intaa soo jarno waxaad arkaysaan wax cajiiba inuu suuqu samaynayo intaa keliya haddaad soo jirtid wax cajiiba inuu suuqu samaynayo arkaysaa oo ah wuxuu hore u sameeyey inuu suuqi samaynayo baa arkaysaa exactly wuxuu suuqu hore u sameeyey inuu samaynayo baad arkaysaa balse uu ka samaynayo goobtii hore goob ka duwan halka ujeedaan double wuxuu ka sameeyey bottom halkana double bottom uu ka sameeyey kadibna correction buu galay all the way up waxa keenayana waxa weeye waa market structure marka inta tan haddaa ila fahantay oo back testiga aa wada sameyn ila fahantay marka hadda awoodeena halkanaa saaraynaa mudane iyo murwo confirmation-ka waa helnay suuqa sababtuu halkaa ku aaday sal ku aaday waxoo dhan waa helnay kadib double bottom-kan aad sawiratay suuqa markuu halakan ka dhaqaaqay oo lagu celinaya channelka wax halaka samaysmay misna wuxuu ka sameeyey double top kale uu soo dhacay suuqa halakan uu yimaaday halakan inuu ka laabto marka maxaa keenay meesha double top-ka ahayd beesha tan inuu ka laabto oo ujeedaa meesha double top-ka ahayd buu ka laabtay maxaa kaloo confirmation kuusii ah meesha tan suuqa horey looga soo celiyey baa ujeedaan trail line ahayd oo 1 iyo 2 iyo 3 inuu halakan laga celiyey kadibna uu tagay suuqi kadib markaad fiiriso marka maxaa weeye awoodeena aan saarayna halakan marka trail line baa noo dhacaya saaxiibayaal trail line qurux badan baa halkaas noo dhacay markaa fiiriso halka marka trail line-keena dhigano si qurux badan u dhigano waxaa arkaysaa wax badan oo cajiiba oo aadan arkayn suuqu uu hore u sameeyey marka aad si qurux badan u sawiratid maxaa sugaysaa marka keliya waxaad jaraysaa dhaqaaqan uu suuqu halka ka sameeyey kadib maxaa sugaysaa inuu suuqu dhaqaaqanaa jaraysaa halka uu suuqu ka sameeyey ilaa halkaas kadib intana qaadaysaa waxaa sugaysaa inta uu suuqu halkaaga imaanayo oo uu ku sameynayo tabtan oo kale waa muhiim waa lagama maarmaan waana sirta suuqa oo aad fahantid
si kale haddaad fiirisa cabirkaagii baa qaadanaysaa impulsive buu suuqu sameeyey sooma suuqu wuxuu sameeyey halka correction kadibna muddo intaasoo dhan ku jira correctionka kan kadibna halkaa kusoo laabto kadibna suuqii kala weecdo oo uu kala wareego markaad fiirisid qaab dhismeedka suuqa oo aad fahantid waa adigoo fahmay sirti suuqa muxuu suuqu sameeyey sida tan oo kale suuqa horey ma usoo sameeyey haa wuu usoo sameeyey mudane iyo murwo seebuu usoo sameeyey marka soo jar waa kan halkaa kasoo jar suuqu waxa uu bartaa keliya kasoo jar suuqa halkaa kasoo jar tusaale kale day halkaa kasoo jar muujeedaa halkaa kasoo jar ilaa halkaa dhig waxaa arkaysaa kan iyo kan exactly inuu barta tan imaaday suuqii maxaa keenay inuu barta yimaado soo jar mar kale si qurux badan oo soo jaraynaa kaas ilaa inta soo jar waxaa arkaysaa wax cajiib inuu suuqu sameynay inuu halka ka dhaqaaqay suuqii correction galay barta tan uu imaanayo kadibna suuqa all the way up laga celinay muxuu bartan u imaanaya sababta halkan weeye meeshii balsifkii hore ka bilowday kadibna uu sameeyo wax la dhaho double bottom all the way up waana waxaana weli wax ku falanqeynaynaa intaasoo confirmation aan idinka siinayo intaasoo wax idinka siinayo weli hal bil baan joogaa suuqu mar walba sidaa markuu sameeyo suuqa haddaan kusoo laabano qaabkuu sameeyo oo sidaa sameeyo isla intii oo kale noo soo jar oo halakan ahayd uu suuqa dhaqaaqay bartaa soo dhig ilaa intaas halkaas dhig waxaa arkaysaa suuqu ilaa iyo inta uu gaaray meesha uu gaaray iyo wuxuu u gaaray sababta halka u gaaray waa maxay marka haddaad fiirisid waa maxay sababtu halka u gaaray sababtu halka u gaaray wax kale maaha trail line-kaa soo qaado halkaas dhigo inuu barta tan suuqu uu gaaro ilaa ay halkaas laga soo caabiyo uu soo dhaco waxaana lagama maarmaana in aad fahantid falanqaynta iyo qaabka suuqa loo falanqaynayo iyo sida ay tahay iyo sirta ku duugan mar walba waxaan joognaa hal bil waxaan tegaynaa hal toddobaad baa tegaynaa marka hal toddobaad marka aad tegtid waxaa arkaysaa wixii hore wax ka duwan suuqii waa soo falanqaysay halakanaad timaaday maadaama halakan timaaday waxaad arkaysaa wax cajiiba oo suuqa halaka sameeyey suuqana wuxuu ahaa suuq ku socday haddaad fiirisid suuq ku socday wuxuu ahaa soo sameeyey waxa la dhaho impulsive buu soo sameeyey correction buu galay oo ujeedaan kadibna all the way down hoos buu aaday kadibna halakana laga celiyey reversal correction buu sameeyey channel meeshana channel ahayd iyo halakana ahayd double top meel suuq ka sameeyo adag sababtaas impulsive buu sameeyey muddadaas oo dhanna suuq wuxuu ku jiray correction ujeedaan okay marka intuusan kan aadin oosan suuqu kor aadin waa inuu halaka soo taabtaa mar kale kadibna uu saan sameeyaa all the way up kadibna waada waxa weeye waa qaabka uu qofku u falanqayn karo ta kale uu samayn karo wejiga kale uu samayn karo waa maxay in barta tan laga caabiyo oo halakan laga celiyo kadibna uu sameeyo dhaqaaq xooggan oo suuqu uu halakan kusii aadayo kadib sii jar dhaqaaqii halkaa correction kan oo kale inuu sameeyo correctionkaas oo kale intuu sameeyo halkaa correction ka galo isna all the way up oo halkaa galo oo bartan uu ka sameeyo correction qaabka kale uu samayn karo bartan in laga celiyo balse inuu halkaas si buuxdo usoo dhammaysto okay haddaan intan isla fahanay mudanayaal iyo murwooyin oo hal bil iyo hal toddobaad isla fahanay hal maalin baa tegaynaa waxaana arkaynaa wax faseexa uu suuqu halaka ka sameeyey oo cajiiba halaka markaad timaadid waxaad arkaysaa wax cajiiba oo one day baad joogtaa one day baa wax ku qiimeynaysaa one day baa wax ku falanqaynaysaa wax cajiiba inuu suuqa halaka sameeyey suuqani markaad fiirisid waxyaaba badan oo cajiib uu sameeyey halakan oo lagu soo celiyey meeshata mar kalea lagu soo celiyey meeshata waa lagu soo celiyey meeshata waa lagu soo celiyey waxa uu sameeyey waxyaaba fara badan oo cajiib ah oo qofku haddii uu arko fahmana uu qofku wax badan u baxayaan falanqayn badanna uu helayo marka mudanayaal iyo murwooyin marka aad fiirisid qaabka taxliilinta suuqa kan uu sidatan u sameynayo one day waa maxay sababta
uu sidatan iyo qaab dhismeedkan u samaynayo sababta suuqu mar walba wuxuu sameeyaa waan idhaahnay wuxuu hore u sameeyey qaybtatan markaa soo jirtid waxay la eg tahay qaybtatan qaybtan waxay la eg tahay qaybtatan qaybtatanna waxay la eg tahay qaybtatan waa qaab dhismeedka iyo market structure-ka qayb walbana markuu imaanayo suuqu wuu ka laabanayay wuuna ka kala wareegayay hadda marka suuqu inuu halka ka laabto maxaa keenay inuu halkan ka sameeyo suuqu sida tan oo kale ka sameeyo saaxiibayaal nusaan intuu halka ka sameeyo saan sameeyo maxaa keenay sababtoo horu halkan uga sameeyo saaxiibayaal double bottom muujeedaa soo all the way up halkan oo kale uu ka sameeyey uu soo laabtay all the way up ma aha wax cusub uu hadda sameynayo halkan oo kale uu ka sameeyey kadibna all the way up hadda ma maxay marka suuqu inta uusan halka ka kala wareegin wax kale laga doonayo inuu sameeyo waxa uu sameynayana oo ah inuu sameeyo lacagta tani ay bartatan cala alaqal ay timaado maxay ku jirtaa marka lacagtani saaxiibayaal lacagtani waxay ku jirtaa wax la dhaho correction bay ku jirtaa flag bay ku jirtaa dad fiiris halka ku jirtaa flag bay ku jirtaa impulsive kan soo cabiro uu suuqu soo sameeyey kadibna halka dhigo inay bartaa noo soo gaarto the wish strategy the powerful strategy wadna baran doontaan wadna arki doontaan waa falanqaynta iyo qaabka loo falanqaynayo waxaana joognaa one day sababtuna waa maxay oo halka suuqu uu soo jabsaday markaad fiirisid markaad fiirisid meesha tan uu soo jabsaday suuqu weliba si cajiiba uu soo jabsaday wuuna soo dhacay halka marka correction buu ka gelayaa kadibna all the way down hoos inuu halka yimaado kadibna suuqii kala wareego okay 4 hour baa tegaynaa marka see iskugu xiraynaa qaabkeennii aan ku falanqaynaynay suuqa iyo wixii dhan okay markaad fiirisid oo iskugu kaya xiran yihiin okay halkan markaad fiirisid si cajiiba bay iskugu keen xiran yihiin okay iska tirtirna kan kalena iska tirtirno si aan u helno halkan time frame-ka aan joogno aan wax badan uga xoogga u saarno markaad fiirisid marka falanqayntan suuqu halkan waxa uu ka sameynayo oo aad fahantid waa adoo fahmay sirta suuqa iyo waxa dhabtaa iyo marxaladda dhabtaa uu suuqa hadda ku sugan yahay uuna sameynayo halkan dhigno falanqaynteena sheena bartaas aad dhigtid si qurux badan u sawiratid waxaa arkaysaa wax badan oo suuqu sameynayo halkan wuxuu ka sameeyey suuqu wax cajiiba trail line-ka kala soo qaad halkaa dhig muxuu sameeyey suuqani marka halkan meel lagu celcelinayay bay ahayd bartaa wuxuu ka sameeyey flag haddaad fiirisid mudane iyo muruu bartaa markuu suuqu saa ka sameeyey maxaa dhacay cabirkaagii soo cabiro halkaas soo dhig dhaqaaqa kan uu suuqu halkaa kasoo sameeyey oo ujeedaa soo ilaa iyo oo halkaa ka imaanayay kadibna dhaqaaqan mid la eg buu suuqi soo sameeyey halkan u yimaaday kadib muxuu galay suuqii correction buu galay oo halkaa kusoo taabanayo mudanayaal iyo murwooyin kadib muxuu sameeyey dhaqaaqii uu suuqu sameeyey mid la eg buu sameeyey haddana muxuu sameeyey tabtii oo kale uu sameeyey waxaa sugaynaa inuu halkaa suuqu soo taabto uu soo dhaadhaco celcelis marka la isku daro marka ilaa halkan ilaa intatan intuu suuqu sameeyey marka la isku daro oo kale baa sugaynaa inuu halkan noo yimaado suuqii 1 hour markaad timaadid falanqayntii oo kale arkaysaa muxuu sameeyey suuqu hadda halkan muxuu sameynayaa waa maxay marxaladda dhabta uuse ku jiro hadda markaad soo fiirisaa halka 1 hour waxaa soo qaadanaysaa tan centalka bartaasaa dhigaysaa waxaa arkaysaa suuqa halka inuu ka sameeyo wax la dhaho double top waxaa ujeedaa inuu halka ka galay correction kadibna aad sugaysid suuqu meesha tani reverse correction channel uu sameynayo sidoo halkan hore uga sameeyo kale kadibna uu soo dhaadhaco suuqii oo uu soo aado cabirkaaga soo qaadatid halkan aad ka soo cabirtid ilaa inta dhexda ka cabirtid aad sugaysid ilaa inta uu halkaa ku imaanayo kadib halkaa markuu yimaado correction kala galo ilaa halkaa uu ka imaanayo oo ah meeshii aan calaamadinay 15 minute baa tegaysaa isla tabtii oo kale waxaa arkaysaa inuu suuqii ku jiro waxa la dhaho correction uu ku jiro reversal correction channelka uu ku jiro waa arkay sidoo halkana inuu ka soo baxo soo jabsado kan hadaad fiirisid 15 minute inuu soo jabsado correctionka kan
oo uu suuqu sameeyo wuxuu horey u sameeyey oo kale. mar kale uu sameeyo suuqu wuxuu horey u sameeyey maxaa soo jaraysaa market structure-ka soo jaraysaa ilaa iyo halkan kadibna aan ka sugayno lacagta tan ilaa iyo halkan inay timaado oo barta ay soo gaarto waana market structure-ka 15 minutes ilaa hal bil baan kasoo bilownay waxaan ku nimaanay ilaa aan ka imaanaynay wax la dhaho 15 daqiiqo waana qaabka uu qofku u falanqeyn karo lacagta iyo lacagaha kala duwan ugu samayn karo falanqeyn guud isagoo time frame kala duwan ilaa uu ka helayo entry sida entry-ga iyo meelaha laga galay istaraatiijiyada ku baran doonta casharaha taxanada taxanaha ee ku jira qaybta sare baad ku baran doontaan casharada taxanaha waxa weeye waa casharo taxanaa oo ku siinaya sirtii suuqa forex oo dhan qaybtan sare bayna ku jira casharaduna si u kala horeeyaan u dhageyso mudane iyo murwo dib ugu laabo trading view-gaaga ku celcelitaan fara badan samee sirtii suuqa dhan waa helaysaa oo mahadsantihiin